Markasta oo aan arko xanuunka indhahaaga ka dareemayo, qayb yaro ka mid ah wadnahayga ayaa dhimata. Wax dhib ah ma leh, iyo inta jeer ee aad isku daydo si aad ii dareensiiso murugtaada. Waxa kaliya ee aan u arko saameyntooda wanaag ayaa kaa oohiyo. Khatar badan ayaad kala kulantaa, isla markaana fursado badan ayaad abuurtaa si aad igula wadaagto qalbigaaga iyo jacaylkaaga. Waxaad jeceshahay inaad ila wadaagto rajooyinkaaga, riyadaada, iyo waxyaalaha aad ka cabsato si qalbigaaga xasilooni u dareemo oo culayska kaaga haro. Waxa kaliya ee aad doonayso inaan sameeyo ayay ahayd isbeddel dhab ah. Waxaan ku guuldareystay inaan fahmo dareenkaaga. Waxaan kaloo ku guuldareystay inaan kuu buuxin waayo booska aad iga filaysay. Ruuxa guulaystay ayaa ah adiga, anigana waan guuldareystay. Maskaxdaydu waxay ka soo horjeedaa qalbigayga. Ficiladayda iyo fikiradaydu ilaa hadda waa kuwo kala fog. Waxaan kaa jeclahay noloshayda oo dhan. Saas oo ay tahay, waxaan kugula dhaqmaa si naxariis darro iyo fikir la'aan ah. Naftayda ayaa ku xanaantaa sida nacasnimada ahayd oo aan ugu falceliyay dareenkaaga, waayo jacaylkaaga ayaan halis geliyay. Waxaan ku ducaystaa maalin kasta oo Eebba keena, weligaa inaadan dhib la kulmin oo naftaadana iigu baahato sidii hore ay igu baahneyd oo kale. Waxaan ku soo hoos dhigay naftayda iyo qalbigayga si aan kuu dhaho waan ka xumahay wixii qalad ah ee iga dhacay. Wax cudurdaar ah ma haysto maanta, iyo wax kale oo aan qariyo. Waxa kaliya ee aan soo bandhigi karo waa jacaylka aan kuu qabo, weligiisna inuu sii jiri doono. Haddii aad ka hesheen muuqaalkan, fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo u sii sheer gareynaya. Haddii aad nagu cusubtahay si aysan kuu dhaafin muuqaalada xiga, fadlan channelkan waxaan kaa codsanaynaa subscribe inaad saartid, like aad inagu dhiirigelisid. Wixii fikirkaagana waxaad inagu soo gudbin kartaa qaybta hoose ee commentiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.